الله وإنا إليه راجعون maanta waxaynu joognaa aaskii xaaji cabdi xuseen oo 122 sano jiray naf kasta oo cimri dheer maalin baa la aasaya qof kasta oo da'ooba mar baa arbay ajashiisu leedahay taa la ogaado xaaji cabdi taariikhdiisa daqiiqada halka laga hadin lagu soo koob maayo wixii af Soomaali yaqaanaana waa yaqaanaa waa wada ogay taariikhdiisa ajnabiga Soomaalida la shaqeeya ee yaqaanaana xaaji cabdi waa ogyihiin oo taariikhdiisa qoraal iyo video boo lagu hayaa xaaji cabdi waxaynu ku soo koobaynaa wuxuu ahaa sabawade murti dhaariya dad wad leh ummadda isu jiida intii oo noolaana noloshiisa u huray nabadayn walaaltinimo iyo islaax ku dhamaystay waxaanay ka muuqataa aaskiisa ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa xaaji cabdi xuseen in ilaahay qabriga u nuuro jannadii firdawsa ka waraabiyo ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa inuu inagana inooga daba naxariisto wixii muslimka ka horreeyayna ilaahay u naxariisto dhammaanteenba ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa xaaji cabdi qoyskiisii inuu samir iyo iimaan taama ka siiyo iyo qaranka Soomaaliland iyo Soomaali oo dhan iyo wixii samaa jecel oo dhanna waa ka taxsiideynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa in qoyskiisii awil khayr qaba ilaahay ugu bedelo halkiisii qaranka Soomaaliyeedna ilaahay awil khayr qaba oo odayaalkiisa kala sabatarisa halkooda ilaahay uga soo buuxiyo marka ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu jannadii geeyo inuu qabriga u nuuro in dambigiisa dhaafo in ilaahay ergeedayna aqbalay inta muslimiinta ay isugu timaadeen meel walba ka timid ilaahu dambigiisa dhaaf oo qabriga u nuur oo jannada gee ilaahu anaga nooga daba naxariiso ilaahu wixii muslimka naga horreeyay waalidiintayna u naxariiso ilaahu dal iyo dad iyo dunya iyo diinba noo barakee wal faatiha